والله هدي لا قالوبي كر عاو قالوبي لا هدي لا قالوبي كرو انت سكون دولار اللي وسين لا قال لي ماذا عاو انا قالوبي لا دينتن واكبخ لا والله بالله دقيقه قالوبي لا عاو انت سكون دولار نولشيد اكو راحيسان كرو وكو قالوبي لا عاو مسلمنمدان waa ugu bixi lahaa xasbunallah kadib leef ay soo gashay ayay waxa ay ku sheegaysaa haddii lacag la siin lahaa inay isaga bixi lahayd diinta islaamka xasbunallahu wa ni'mal wakiil waa fartuun balbalaarka oo baraha bulshada caanka ah isla mar ahaantaana dadweynahoo idil ay si weyn ay u yaqaanaan muuqaalkii intaan u gudagelin daawade fadlan like saar oo page-keena Ducaysana Media ku soo biir subscribe dhe channel-keena Ducaysana Media ku mahadsanid daawade kulanti habboon saaxiibayaal meel kastoo aad dunida daafeeda ka joogtaan ku soo dhawaada channel-keena Ducaysana Media warbixinteennan saaxiibayaal waxaan diiradda ku saari doonaa muuqaalka baraha bulshada sida aadka ah u haysta ee live ay xalay soo gashay gabadha lagu magacaabo fartuun balbalaarka isla mar ahaantaana caan ka ah baraha bulshada isla mar ahaantaana ka mid ah dadka ka qosliya ee baraha bulshada caanka ka ah ayaa waxa ay soo gashay live isla mar ahaantaana ay kaga sheekeynaysay xaalad iyada Kenya ku qabsatay iyada oo ku sugan magaalada Nairobi ee cariga dalka Kenya ayay waxa ay sheegtay in ay weysay hiil iyo hoo isla mar ahaantaana ay xambaarsan tahay oo kaliya magac waxa ay aflagaado u geysatay beesha ay ka soo jeedo ee Jareerweyne iyada oo sheegtay haddii ay Jareerweyne lacag ay u aruurin lahaayeen in waxyaabahan oo idil aysan samayn lahayn ayna furan lahayd ganacsi iyada u gaara waxay sheegtay haddii lacag la siin lahaa in ay diinta ka bixi lahayd muuqaalkan ila meel cusub daawade oo ay kaga hadlayso live ay soo gashay isla mar ahaanta ay kaga dhawaaqayso arrimo fara badan oo ku aadan in xitaa ay aflagaado u geysanayso beesha Jareerweyne oo ay iyadu ka soo jeedo billaahi liguma arki lahayn meel TikTok ka dhow wallahi adduunka cariiriya ku arkay yay geystaan ma kisaysin dadkaan ay dhalaa ay geysteen adduunku waa ku dhibtooda wallahi caaw dabaq miska tuura miska dhinta noloshan miskaaga baxaa wax kala soo qusayse tan nolol ma lagu jiri kare wallahi haddii la gaaloobi karo caaw waa gaaloobi lahaa haddii la gaaloobi karo intas kun dollar lagu siin lahaa gaalnimada caaw ana waa gaaloobi lahaa diintan waa ka bixi lahaa wallahi billahi daqiiqadan waa gaaloobi lahaa caaw intas kun dollar nolosheeda aan ku raaxaysan karo waa ku gaaloobi lahaa caaw muslimnimadan waa ugu bixi lahaa والله جرير قبيل معها واحد جرير أكو شاكتا قلده قلين إنا قالوا قبيل كلا شاكتا مضع عصب بحسده آبو عصب راسده هاي عصب راسده دانتي إيو خص بيسو والله هدي عاو لقالو بلها نلو شيء انت كدمان أكا إماني تدليدي لها وحا أدونك وجعشا واهي ليسا والله نصح مسلم معهان لين واكبح لها فاكين عاو جريرتي igu kacsan tahay habeenkii igu kacsan tahay ma arki ma ogtahay horta mana isoo qabsanayaane sida aad ula socoto xogaha maalinlaha ah oo aan soo galino channel-keena Ducaysana Media fadlan channel-keena Ducaysana Media subscribe garee oo page-keena Ducaysana Media like saar ku mahadsanid daawade